fada burco iyo sababaha ay ku baxeen bal maanta dadka Soomaalida aanu wax la wadaagay oo niyo waa run horteen erbixinta reeb aad bay ugu horeeyeen aniga magacyada xaafada iga yaabiyay waxa kamida xaafada si quraaco soo qadatay burca kamida waxa kamida ilaahu waa naaragta xaafad leeyahay waxa kamida nafaqo tuurta tuurwa waxa kamida samiriye iimaan waxa kamida sibaqti saxaraha sahlan waxa kamida kaama horeyso waxa kamida cuqubo qoyar dega xaafado far badan oo magacyadooda iga yaabiyeen way xaafadaha dadku magacyadooda qaar way ku qoslayaan bal haddaynu tusaale ka qaadano samiriye iimaan oo kale maxay ku baxday imin samiriye iimaan waxay ku baxday xabaalaha u dhow dabeetana midadku ma sii dhaafeen mar walba samiriye iimaan ilaahay naga sii dadka la dhaafinayo samiriye iimaan ilaahay naga sii marka mar walba geeri baa dhaaftay iyo damiid baa si arkeen subax walba uu samiriye iimaan sababta sala ku bixi samiriye iimaan way xaqo kale waxa u dhow sorbadi weynad dhow moogta dadna qumqumkii hilibka wala nafaqaysanaya xaafada imka si quraaco soo qadatay magacaad ka dareemaysaa waxa weeye way fogta fogaan baa loo bixiyay marka subaxii si quraaco qado ku tala galmis ana ka soo toosa waa ka soo toosa si quraaco soo qadatay sibaqti oo kale laga yimaado iyo sibaqti oo kale marka xaafada laga yimaado erebixinta waxa kamid ah garhka oo kale garhka dadka soo baxa ninka garhku inta ka soo baxo waxay u yaqaanaan garhka halkan maxaa loo yaqaanaa maxaan cunaa halkan guriga ka soo baxa garhka weyn ee hamashka ee wadaadada waxay u yaqaanaan allahumma salli bakhaari dhiibo garhka labadan ka soo baxa u yaqaanaan garh miskiinle labada qura ka soo baxa yar ee dhuuban inta ka soo baxa maarta waxa loo yaqaanaa barista caleeye garhkaaga soo kale inta magaraysa waxay u yaqaanaan macaamada iga kacday waan gartay deeqo kaaga kale waxa loo yaqaanaa taga soo kale naga xishooday kayga kale gar caadi naga xishooday loo yaqaan aad u mahadsantahay runtii aniga bulshada waad naga qoslisay toddobaadka barnaamijka deeqadaan kugu furna marka laga yimaado su'aalahan ku weydiinayo maxaad bulshada maanta halkan u raacin lahayd